geela marka kusoo qaadan dhaqan xumada asaliyan waxaan dhihi karaa waxay ka bilaabatay dadka waaweyn ee bulshada inay indhow noqdaan la rabay banaanka markay u soo baxaan tusaale ahaan anaga hadda waxaan sameynaa carruurta markay xagga kale ku dhilayaan anigana meeshaan ku cayaarnaa badanaa waxaan u badanaa inaan cayaarno kubadda cagta kubadda markaa cayaarayna marka waxaa jirto dadka waaweyn caadi dhaqan waxay u leeyihiin maanta dhan inay iscunaan ay qayliyaan ay cabaadaan yacni si nidaam aysan u ciyaarin ciyaarta canuga carruurta dhinaca ku dhilaysana waxay qaadanayaan dhaqanka anaga aan sameynayno marani bilaabayaan haa saas darteed meesha waxaa ka baxaya ixtiraam xumo carruurtu waxay bilaabay inay dadka waaweyn soo dhex galaan ay la cayaaraan waxaa arkay marka canug yar oo qof ka weyn afka la gelaya amba ku qaylinayo waxay la naqanaya si dhaqan iyo caade wax anaga yacni aan hibo u leenahay inay tahay camal fahamta aad iyo aad aan kuugu mahad celinayaa adigoo jooga mid kale oo dhibaatada ugu weyn dhibaatada ugu weyn oo meeshaan aan ku aragnana waxay tahay qofka walaalka ah waxaa loo baahan yahay mar walbaba inaa u ahaatid tiir amba qofkii difaaci lahaa waaran soomaali markaan ahnay waxaa u malaysaa dadka adduunka iskugu necb inaan ahnay maxaa yeelay qofka soomaaliga maanta markuu meel imaado qofka kale walaalkii kuma faraxsano waxaana loo baahnaa maanta qowmiyad ahaan inay ahaato kuwa isku faraxsan isku dibacsan dhibka isla qaybsada inay yihiin marka aniga dardaarankeyga ugu weyn wuxuu noqon doonaa hadduu ilaah yidhaahdo horta inaan ogaano inaan dad muslimiin nahnay maxaa yeele qofka muslimkaa qofka kaleo muslimka walaalkii mar walba wuxuu u yahay gaashaan u yahay difaaciisa weye soomaali markaan aanna xeerka wuu kasii duwan yahabo inaan aqoonsano inaa dunyada laga tegaayo waxa la joogaan inay wax yar yihiin si dalkii oo u dhismane dhibta taalo in laga wada fikiro maxaa yeele dhibtaba intay ka bilaabataa maanta o dhan waxaa arkay nin iska rigan amba shaqaysto amba ceel iska qaato ee ku mashquulsan qabiil iyo wixii soomaali ka jiro saas darteed marka kala fogaashiya abuuray mar walba biniaadanka inay sii kala fogaadaan mar walba oo qofka biniaadanka oo yacni dhib ka tabanaysa amba colaadiisa afkaa ku haysid waxaa ku fududaanaysa inaad qalbigan ka nacdid amba kaclool adeegtid oo dhibaato walbana aad ku samaysid fahamta aad iyo aad aad umahadsan tahay waxaan rajeynaya inay kuwana qaataan hadalkaagaas oo isjacayl iyo is-ixtiraam iyo in wax la wada qabsado barnaamijkan aan uga hadlaynay arrimaha dhaqan xumida iyo waxyaabaha aan wanaagsanayn oo bulshadu aanay u badnayn laynka kale telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salam waraxmatullahi wabarakaatu axmadiya aad baan kuu soo dhaweynaya magacaaga halkaa joogteed london baan jooga cabdilqaadir baa la yidhahdaa haa soo dhowow ka waran arrintaan ka hadlayna maanta wallahi niyo arrintu aad iyo aad bay horta ii cajabiso arrimo aan beri agteeda joogay baa wax mid kamid a aad soo dhigtay moogtahay halkaa igu soo celi aad iyo aad bay ii cajabisay horta arrintu aad maanta ka hadlaysaa kawdhi si fiican arrimo beri aanu ag joognaba qaar kamid a aad iminka meesha soo dhigto arrimaha ku jiray guurka haye waxa weeye reer baa inan iyo inan isa siiyey haye berigaa waa dhowr iyo toddobaad adigu dhowr iyo sideedkii meelahaas dhowr iyo toddobaadkii be dhowr iyo toddobaadkii be aad iyo aad marka berigaa dadkeenu xagga markaynu joognay dalkeennii dee waxaa la jeclaa alaabta dabadda laga keena maogtahay haa markaa sida aad sheegayso labadii islaamood ee labada carruura kala dhalay ayaa labadii carruur ahay dushoodii ku gorgortamaya oo haddii midba alaab gooniya doonaysa waa gartay berigaa talyaaniga iyo turkiga iyo meel saasa wax loo doondooni jiro talyaaniga midib labadii islaamood baa midib talyaaniga ka keentay alaabtii waa gartay alaabta markay keenta bay tii kale soo kaxaysatay kooxdii aad sheegaysay 5 iyo 6 ahayd alaabtii baa la yidhi waa lasoo eegayaa maxay ahayd gurigii alaabtii waa la furfuray oo gurigii baa la dhigay markii ay soo gashay baa la yidhi alaabtani maaha alaab haddii iisee leeyahay macnalo waa alaab ligeeta waa guddigii qiimeynta ee isdiray oo cidna aysan waa kuwii qiimeynta qoladii isdirtay aad iyo aad alaabtii waxaa la alaabtan looma dhigayo inankii inanta haye waa la tuuray waa laga saaray meesha waxaa hala iibiyo haye tii kale alaab kale keentay waa gartay waa labadii islaamood carruurta kala dhalay ma ogtahay haahe alaab kale keentay oo tiina intay kooxdeedii soo kaxaysatay markii tii la keenay haa ayay iyana tiri tana la dhigi maayo haye oo alaab xun weeye oo haddii kale meesha lama keenin jarmalka waa in laga keena alaabta la doonayo inanka iyo inanta in loo dhigo waa gartay waxbay hada ku daalina odaygii inanka dhalay baa la yidhi war inankan iyo inantan lagu leeleelayo haa maxaa isugu aada u dhisi weyde waa gartay wuxuu yidhi guriga iyaga reerka lama awroo qooqan haa ayaa ku jira waa gartay
labada awrtu way dhibishka xataa markay qooqantay moogta isu timaado aad iyo aad wuxuu yidhi marka ay mid kaadidu ka dhammaato ee wuxuu ku dhibishaxda uu waayo ayaa inankii inanta laysu dhisaya inta ka horreysa waa la kala joogayaa marka waxaad leedahay guddigan isdiree dumarkaahi berigaaba waa jireen 70aadkii weligoodba way jireen weligoodba arrinkaasi wuu jiray horta dee sidan imika la yahay lama ahayn waxaan